wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland mudane Cabdi Jamaal Cusmaan Maxamed ayaa kormeer qaatay 2 maalmood ku soo maray dhammaan xarumaha dowlad goboleedka Puntland oo ku leeyahay magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag sida taliska ciidamada daraawiishta saldhigga ciidamada bilayska ciidamada ay jeesha goobaha waxbarashada sida jaamacadda Maakhir iyo dhammaan sekondariyada ku yaala magaalada Baran isbitaalka weyn ee magaalada Baran iyo xarunta wasaaradda maaliyadda gobolka Sanaag ee magaalada Baran kormeerkan soconayay muddada 2 maalmood ayaa ahaa mid ugu kurgalayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland xaaladda amni iyo tan horumarineed ee ka jirta xarumaha dowladda ee gobolka Sanaag ugu horeyn xarunta taliska ciidamada daraawiishta Puntland ayuu salaan sharaf kaga qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland isagoo halkaasi kaga dhageystay khudbad kooban taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland ee gobolka Sanaag gaashaanle dhexe Cabdullaahi Cumar Cashuur isla markaasina ku amaanay waxqabadka ballaaran ee ay bulshadooda u hayaan ciidamada daraawiishta Puntland ee gobolka Sanaag kuna booriyay inay ka shaqeeyaan sugidda amniga guud ahaan gobolka Sanaag dowladuna ay hiil iyo hooba la garab taagan tahay intaasi kadib ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland wuxuu u sii kictimay saldhigga ciidamada booliska ee magaalada Baran halkaasi oo uu salaan sharaf kaga qaatay ciidamadaasi isla markaasina uga soo jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa hadaladii wasiirkana waxaa ka mid ahaa saldhigga degmada Baran aan arko magaalada Baran inta baaxadda leeg tahay qaabka u taal hadda iyo inta tuulo ku xiran iyada runtii waa tiro aad u yar marka la eego saldhig ahaan ciidanka saldhigga jooga waxaa muuqata inuusan ku fillayn baahida magaalada gudaheeda ka jira oo keliya waxna uusan ka qaban karin tiro ahaan iyo baaxadda magaalada tahay baahi kasta oo jira waxay qaldan ciidanka daraawiishtu maaha booliis maaha amniga magaalada mas'uuliyaddeedu waxay saaran tahay ciidanka booliiska saaran waxayna ka fanbata in caawiyaan way laakiin ciidankii maxaabiista ahaa dadkii maxaabiista ahaa idan gacantina ku hayn oo ciidan daraawiish hayso maaha wax qurux badan qalbigeedana ma geliso amni ahaanna arrin dhaliil sidoo kale goobihii uu kormeerkiisa kusii kala bixiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland waxaa ka mid ahaa jeelka cusub ee magaalada Baran oo waqtigaasi uu ka soconayay dhisme aad u ballaaran oo ay ka qayb qaadanayeen ciidamada jeelkaasi waxaana halkaasi kaga warbixiyay xaaladda jeelka taliyaha ciidamada asluubta gobolka Sanaag Axmed Daaye Jibriil xukuumadii raxmaadada ka socotay adaa ku daraya waana ku rajow sidaas aan ciidanka ku shaqeeya afraad ka saac albaabada guriga sariirka oo qolka deegaanka nooca afarta qolo gudaha ka dhisan oo midna sii jeedo afarta midna waa sii jeeda saddex waa sii jeeda waa min 13 jiro isku wareeg oo hol maadaama ciidankii isagu uu yahay qalbiwalihii ka yahay oo kuuli ka yahay oo macallin ka yahay khasab wuxuu tahay waajibaad bay saaran dowladda halaanay inay si wadaan waxa ka sii badan rajaynayna inaan wax ka qabanno insha Allah billahi kari dadaal badan ka sameeyno si dhaqso ah wax loo aqoon inaan nafteeda oo waqtiga sii joogno inaan nafteeda isku soo wada duubo kormeerkan oo ku soo maray wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Puntland dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaa noqonaya kii ugu ballaadhnaa ee uu abid ka sameeyo gobolka Sanaag mas'uul ka tirsan mas'uuliyiinta sare ee maamul goboleedka Puntland tan iyo intii la dhisay Jaamac Faarax telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Baran xarunta gobolka Sanaag.